maxamed cusmaan maxamed waa horjoogaha kooxdan laakiin leh magacyo kale oo uu al-shabaab dhexdooda maalinba mid u yeeshay isticmaalka muddo-dhagareed gaar ah sida tuutaale. horjoogahaasi waa xiriiryaha ganacsata maaliya aqoonba leh heestana fursad ay ku dalban karaan export iyo import oo ah keenida dalabaad dibadda iyo dhoofinta alaabta gudaha. sida ay ka wada shaqeeyeen sirdoonka Soomaaliya oo kaashanaya dowladaha taageera waxaa u suura gashay inay u dusaan xogaha xiriir wadaagga ee dhexmaray horjooga tuutaale iyo eedeysanayaal 5 oo maxkamadda ciidamada ka soo muuqday. meeshiika jarjaridda biraha loo adeegsado qaraxyada oo la soo marinayo boosta DHL ay u weysan yahay tuutaale xiriirkeeda meesha uu marayo isagoo dhexmaraya xiriirka WhatsApp-ka saaxiibadiisa shaqada. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sayid waxaan ka rabaa mashiinkii soo socday oo aan ku dhahay waa ugu soo qorana dokumentigiisa waayo oo dhammaystiran lacagtiisii shahaadadii wixii oo dhan intuu ka kooban yahay kulli waa kuwaas 3 warqadood. dokumentiga marka oo bill of lading oo tikad waxa laga soo baxo ara magacii iyo lambarkii lagu soo qori lahaa inay soo sheegto ilaa DHL soo dhigahay noogta oo meeshii laga soo wacay macnaha inay soo sheegtaan raba magac lagu soo qori lahaa ma santaasidi. cabdisalaam cali faarax qadar cabdisalaam maxamed cabdi sheekh cumar daahir cusmaan maxamed cabdisalaam cusmaan maxamed eedeysana kale oo baxsada ayaa ka soo wada muuqda maxkamadda ciidamada qalabka sida. dhammaan eedeysanayaashan waxay ku wada eedeysan yihiin keenida maadooyin dhowr wijo oo loo isticmaalo leh laakiin xiriir wadaagga kooxdan ee u gaar yeeshay in lagu gubo dadka iyo dalka waxaa ka mid ah noocyada sida gaarka u dalbadaan MBK 13.46 oo ay sugeynta nitrogen phosphorus iyo potassium. adeegyada kale ee dejiyaan waxaa ka mid ah sulfuric acid, erythritol, ethanol, toluene, pyroglycerine oil, acetone iyo potassium nitrate. dejinta howlahaasi oo loo isticmaalo baahiyo ay ka mid yihiin beeridda iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah adeegyada caafimaadka waxaa u sii dheeraa keenida electronics sida kombiyuutarro, codbaahiyaal, jaakadaha qaraxyada iyo alaabta ciidamada sida military goggles oo ah ookiyaalaha kala duwan ee ay isticmaalaan ciidamada sida ookiyaalaha aragga habeenkii shift. MBK ayaa tijaabada gubideeda hawada la isku marinaya iyada oo tay ahaan loo qaadanaya inay ka fiican tahay dhammaan dalabyadii hore. waa kan eedeysana maxamed cabdi sheekh cumar oo sharaxaya dalabkeenihiisa sida gubidda maadadan uu la dhacsan yahay iyo isaga oo ka dalbanaya tijaabo lamid inuu sameeyo. nabadoon iyo sayid kadib tijaabadii ayaa lagu galay. nabadoon arkaysa hadii alla idmo waxaashii sida u taalo waa taas kamerada ku hayo sida ujeedada sida u cadahay waxaan soo qaatay hadii alla idmo tiish isagana waa ujeedada tiishka sida uu yahay hadii oo macnaha duubisteedu xun tahayna mushkila male wax badan adaa tuusi doona hadii duubisteedu xun tahay tiishkaana soo qaatay ujeedada hadii alla idmo wakaas tiishkaas aan wata halkaan geliyay halkaan waa baaquligaas waad fahmi kartaa waxaan soo qaatay jegansiirka iyo yaala inta jegansiirkaan soo qaadana hadii alla idmo jegansiirkaan ku daaraa jegansiirkaan ku daaraa baalka wakaas waa halcayaa waad arkaysaa insha Allah wakaas waan ujeedaa jegansiirkaan ku daaray waa halcayaa hal ciise ujeedaa marka sidoo halcayaa waa ujeedaa inuu halcayaa waa ujeedaa sidoo halcayaa qaadadii aan soo qaatay wax yar aan ku soo riday waad ujeedaa sida uu barbarqayso ujeedaan malaynaa sida ay samaynayso waxyar oo qaadada ku jira ujeedaan qaadada waxyar هذا وحير شو هذا ولا صوتون مرنا إن شاء الله مركا سيدا وحلقنا هو سيداس سيال وحلقنا مركا إن أساس ولا دي الله يدنا هدير نقول صدر إن شاء الله marka weel yara soo qaadane t-shirt duubaysa
waa ku dhex ridee jiinsiirka ku daare markuu wax yar holac sameeyaad ku shubee marka saasay noqone caradii hadda ka hor aan kuu sheego oo naloo keeni jiray caradii sideedoo kale waa insha allahu marka wixii jawaaba insha allah adaan kaa sugaa eedeysanaha labaad ayaa isna soo saaraha maadadan oo jooga Jaana ay ku wada xiriirayaan WhatsApp-ka muwaadinkaasi Jaaniska ah waxa uu kaga digayaa qatarta ay leedahay dalabkiisa laakiin Cabdisalaam Cali Faarax waxa uu leeyahay waxaan ka dalban karnaa wadamo kale oo daris ah iyo kuwa kale oo jira wadamada Aasiya ee ciribka Yurub sii jira waxa uu sii weydiinayaa haddii laga badin karo tayadeeda sida ay tahay isagoo oo ku maaweelinaya Jaaniskaasi lacag laakiin ganacsadahaasi oo xitaa soo jeediyay inuu meelo kale ka dalbado waxa uu sheegay Cabdisalaam in ku culistaa soo daabulisteeda baarayaasha uga wakiilka hay'adda nabad sugidda ayaa dhammaan xiriirada kooxdan ku soo bandhigay hoolka maxkamadda ciidamada oo daneeyaasha kiiskan goobjoog u ahaayeen xafiiska xeerlaaninta ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsaday in la mariyo ciqaab u dhiganta qodobada ay ku soo eedeeyeen xaqiiqadan waxaa la ogyahay in qaraxyada daawooyinkan ee kiimikadan loo isticmaalay ay fuleen dad ku dhamaaday intaasoo hotel intaasoo goobood intaasoo xarumood dawladdu leedahay ay yaani shakhsiyaad la yaqaano saraakiil la ogyahay dad weyna shacab la ogyahay ku dhamaaday ku dhintay waxaan codsanaynaa eedeysanaha koobaad in maxkamaddu ku xukunto ayadoo cuskanaysa cadaymihii aan soo bandhignay ee qodobkaas farqadiisa koobaad ee lagu xukumo dil ayaan codsanaynaa qareenada u doodaya eedeysanayaasha ayaa maxkamaddu weydiistay markii hore la helo sharciyad soo martay faafinta rasmiga ah ee saxiixa madaxweynaha kadib ay mudan yihiin muwakkiliintooda ciqaab laakiin aan marnay iyaga loo gaaryeelin ciqaabaan waddanka ka jirin haddii ay jiraan sokor aan keennay ciddii qarax ka samaysay annaga waxaan u keennay dadka oo sokorta qaba waxaan u keennay ashtada bateriyaasha lagu shubto waxay ka mid yihiin ganacsiga cidda wax kale u rogtay oo aan annaga ahayn ayaa mas-uuliyadda qaadanaysa annaga maaha taas bari anaa ka nahay horey ma loo keeni jiray haa xurriyadka qaadistiisii kadibna ma la keenaa haa waa la keenaa waxay ku tusaysaa marka in ayan ahayn wax ka xaaraam ah dalka in la soo geliyo MBK labadaas daraasad ka hadlayaan waxaa lagu bacrimiyaa beeraha shaqo kaleeto gaara oo loo isticmaalana khubaro beeraha waaye dadkan iyo MBK shaqo kaleeto oo loo isticmaalo haba yaraatee ma jirto waxyaabo kale haddii lagu dardaro dabcan oo haddii la isku dardaro waa badaha ayaa wax kale keenaya laakiin MBK oo buyuur oo kaligeeda shaqo kale loo isticmaalo ma jirto waxay ku qorantaa daraasadaha ku qorantaa labada daraasadood ku qorantaa waxaan rabnaa inaan maxkamadda soo gudbino intaas waxaa noo dheer muwakkilkana markii la qabanayay wuxuu ka dhoofay airportka hadduu dambi isku og yahay ama uu yahay qof tuhmaya inuu u shaqeeyay koox ka soo horjeeda dawladda muusan tagi lahayn airportka asagoo sito agabkiisa oo dhammaystiran oo xogtiisa ku jirto wuxuu ahaa arday rabay inuu jaamacad aado soo difaacda buug sidaas darteed waxay caddaynaysaa midaasna inuusan wax lagu ku lahayn wax urur ka soo horjeeda dawladda maxkamadda sharafta leh way maasantahay ninkan shirkada ku qoran cidaan looma raaci karo teeda kale waxa waaye dadkii haddii uu dambi jiro dadkii ka mas'uulahay waa ninka Shiiniska warqad xataa looma qorin markabka keena warqad looma qorin war ma dhihin mar kale wadanka ma keeni kartid wasiir amniga warqad soo qor alay wasiir amniga xaq uma laha inuu soo qor waa in baarlamaanka la marsiyaa arinta mamnuuc ee wadanka ka taala yiraahdo danta laga lahay sida hadda NBK-daas oo kale ay noogu caddahay danta laga lahay markii la isla yaqaano markii mashiinkii ujeedada laga lahay la og yahay oo toorna inay tahay la og yahay oo nin la dhaho Xaaji Cabdullaahi inuu soo degayso la isku waafaqsan yahay oo ninkan xirayn inay timid la isku waafaqsan yahay mar haddii naga gudba shakiga ahay qof ama la aqoonin oo al-shabaab xir la leeyahay oo nasiib wanaag ay tahay qofka uu la hadlayo qof la yaqaan ay tahay maxkamadda sharafta leh waxaan codsanayaa tuhunkaas wuu baxay fikradda dambiga qaldaneed way dhamaatay waxaan codsanayaa in muwakkilkayga uu helo xurriyadiisa oo taam ah maxkamaddana waa mahadsantahay dhageysiga maxkamadda oo qaatay maalin dhan ayaa ugu dambeyn waxaa soo xiray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare xasan cali nuur shooje dhageysiga garmaqalka dhanka ka ah 7 eedeysane oo laba maqanaha tahay intaas ayuu ku dhan yahay maanta maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso